إذن كلمة أنا داوية ديوانو قرمي وتواضع هي قرب شلاعة هي محل هذا إن كل يسو قادله هوصل يسكدقه هوصل يسودقه وحدونا يا شيخ إن عنده كلمة أنا ما جرتا كلمة كان أو أيضنا كبر يتكبر يقطرسات الماميسة ولوها لأكتمه فليتفضل. أحسن الله إليكم. نعم وجهة شافي أنت أنت أقولين كلمة كلا أيضنا لوها لأكتمه اللي وحان لي هاي وحان يساعدنا ويتوسع تاعه وحان هذا فيرنا ينتو شيخ هذا إيبا وحان كلا فري لامية اللي يراهدو نصيحة الإخوان إيا ومرشد الخلان أما كما قعدير لامية ابن وردي ومنظومة أدو قيمة بدن وأخلاق ذا إيا وناقة كهد ليس وحويري ابن الوردي رحمة الله عليه هذا العلاقة توصل له قبيالات يعرف هذا الشيخ وكهد ليات هذا الشيخ وحون يريد رحمه الله تعالى لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل هأرن أصل كيغو ساسو أها فصل كيغونا يعني دادك فرعي هو أساس أنا دادك كسو تشيدونا وأساس أنا أقول غير هبل بانا هاي هأرن محايا لي أصل الفتى قفك أصل فيسو ما قد حصل وحاو يقان نوي مركا قيمة الإنسان ما يحسنه ويأكثر الإنسان منه أم أقل أما يريسو أما بطئه وحا تقان نوي مركا وحا أضغو استهي iyo duntaada ayaa iyo ku anfacaysa akhlaaqdaada iyo alla ka cabsigaada iyo iimaankaada ayaa ku anfacaya ama kalimatu li waxa xusuustay inta kalimatu li gelin asagana nin kale oo yiri abil islaamu la abali siwahu ila iftakharu bi qais aw tamimi waxa ka horeeyay mid kale oo yiri oo ku faaray oo yiri muxuu yiri yani wahal ana illa min ghaziya in qawad qawaytu wa in tarshud ghaziya arshudu marka هذي غير هبل أي باديوغانا ولا باديوغي هذي هنونانا ولا هنوني فكاسو الجواب وحيري أنا آبا هيقوا إسلام آبا كان مليه قبيل كإيا وحي دوران بها كفارينا شيخ كلمة لي صلى محي وطا وكلمة بقوها لك سمو إلهي أنا قبت بادية وحانو شيغي إننا والله نفسي ذي كسعوتا ضدك مغلي كسعوتا وعذر وآفو وإبتلو ودباسة أردن إلهي بان النوغدقي سبحانه وتعالى مكا كلمة لي وأنا له أنا له وحكم وحاوي يرسل لي معنى وحاوي شعور بالملكية الخاصة وحن أنا قارئيه هي والأنانية المفرطة أنا وحن وحيقيه أنا قاعد أتكلم قفكو كتاب ويالان كرا كمبيوترنا ويالان كرا قولنا ويالان كرا لكن سوماليدا waxaad ku arki dhul ilaahay oo iska qooqaaran oo geedale oo badale oo burale waxa ku dhii aagan aniga iska leeyahay soo dhawaan karo hadda waad aragtay dhulkeena wuxuu ku aafaysan yahay wax la yiraahdo federalism iyo maaragtay markaas ayadii la fadeedib la isku dilay oo nin walba meel kale uu sheeganaya oo ummadii mar qabiil baa madaxa la isugu geliyay mar dagaal sokeeye hadda waxa socdo oo lagu baabi'inaya ilaahay naga badbaadiyay waxa weeye gobolka anaga iskale meesha anaga iskale وعينك anaga iskale marka anaaniyada iyo waxan aniga iskale iyo wal imtilak yani meeshan aniga iskale gobolkan aniga la buurahan aniga oo ya maada buuraha samay dooxooyinka maada samay ceelashan maada samay ilaahi baa samay teeriya nabiyullaahi aadam buu dhulkan jiray sidaas aan la isku daba marayay ya adiga ku tiin bareeyay ku shaabaday nacam dadku gobollo way kala degnaan karaan annagu Soomaali baan nahay Afrikaanku waa Afrikaan Yurubiyaanku waa Yurubiyaan meel Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka beeray waa jirtaa Nabi Muhammad Makka waa jeclaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi hadda taa ka hadlimayna laakiin qofku wax dad badan ka dhaxeeya ummadana ka dhaxeeya inuu isagu sheegto oo yiraahdo aniga gaar yihiin way liido wuxuu qofku oran mesela shirkadaas aan leeyahay wuxuu oran waxaan leeyahay intaas oo shahaadaan qaatay intaas oo maartay jaamacadood baan ka soo baxay wuxuu oran cilmiga ana min al-ilmi kada wa kada buu oranaya arintaas iyada ana sheekh al-faadil waxa weeye min baabi kufraan an-ni'ma ni'mada ilaahi subhanahu wa ta'ala ku siiyay oo lagu gaaloobo weeye maxaa yeelay fadli wa min allah tabaaraka wa ta'ala waxa aad haysato ilaahi baa ku siiyay subhanahu wa ta'ala marka fadliga ilaahi uu ku siiyay
inaad adigu sheegato ood adigu isla haysiiso oo aad ku faanto waa ceeb aad u weyn waana dagaal uu insaanku ilaahay subxaanahu wa tacaala ola bareeray weeye inuu ku guuldarraysanayo oo uusan ku khasaarayana waxa weeye arrin aan marag madoonto ah weeye sidoo kale sheekh ilfaadil samaxta lii qofkii ugu horreeye kelimatu lii yidhi iyo meeshuu ku dambeeyey bal maynaha fiirinaa nacam waa arrin muhiim waayo wax walba ma'aalkiisa in la eego way fiican tahay qofku haddii isqaadqaado in la ogaado meeshuu ku dambeeyey waxay faa'iido u tahay dadkii waddadaa kale mari lahaa inay iska ilaaliyaan akramakum allah waxaa yidhi ninkii la odhan jiray qaalahaa fircawnu ninkii fircoon la odhan jiray baa yidhi ana rabbukum alaclaa ninkii yidhi weeye wanaadaa fircawnu fii qawmihi qaala yaa qawmi alaysa lii mulku misra wa hadihi alanhaar si hore ana bay ahayd oo ibliis buu la wadaagay laakiin middan lii bal u fiirsada ilaahay baan idinku dhaariye walaalayaal wuxuu leeyahay intuu dhawaaqay wanaadaa fircawnu fii qawmihi tolkiibuu u dhawaaqay waa fircoonkii masar ka talin jiray aminkan faraaciin baa masar ka talisa oo dhibaato badan ku haysa muslimiinta oo hadalladii uu ku hadlayay bay maantadan ku hadlayaan iyadana fircoonna nin magicii meehe fircoonku waa darajo waa genaraal oo kale ama boqor oo kale ama amiir oo kale ilaa 2,000 oo sano ayay faraacinadu dadka xukumayeen baa la yidhahdaa laakiin midka qur-aanka uu kusoo degay aramsiisu thani iyo ayaa la yidhaahdaa baa la yidhi marka kaasaa yidhi wanaadaa fircawnu fii qawmihi dadkiisiibuu u dhawaaqay waa dad uu maskaxdii iyo ka xaday fastakhafa qawmahu faataacuuhu intuu istaagay oo meel balbala ah uu soo istaagay oo uu meel weyn fuulay iyo wuxuu yidhi dadkiisiibuu la hadlayaa alaysa lii mulku misra masar milkigeedii soo anigu melihi wa haadihi alanhaaru tajri niil iyo webiyadan dureerayana soo anigu iska melihi tajri min taxti afalaa tubsiruun war miyina wax garanaynin war maad madaxnimadeeda qirtaan saasuu leeyahay marka nihaayadiisii xaggay ku dambaysay ninka la yidhaahdo qaala allahu tabaaraka wa tacaala faakhadnaahu wa junuudahu fanabadnaahu fi lyami fandur kayfa kaana caaqibatu alظaalimiin waan qabannay isaga iyo ciidamadiisiiba buurta baddiibaa marka lagu tuuray oo lagu halaagay markii badda lagu halaagay oo halaagiisii ciidamadiisii iyo wixii o dhan way halaagsameen laakiin markuu sii dhimanayey ayaa haddee wuxuuna moogtahay ilaahay wuu rumaysnaa subxaanahu wa tacaala wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum allah subxaanahu wa tacaala weynankiisa iyo wanaagga uu leeyahay iyo milkigiisa iyo boqortooyadiisa fircoon kama dahsoonayn sheekh fircoon waxaa la yidhaahdaa xata al'aan jirkiisa waa joogaa qur-aankuna wuu tilmaamay yani taa waxay daliil u tahay qadarasadiisii iyo kibirkiisii in xata al'aan banaanku yaallo nacam qur-aanka maxaa kamid ilahay ku sheegay allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wajaawaznaa bibani israa'iila albaxra suuradee weye waa suuratu alacraaf suuratu yunus meelo kalena waa lagu sheegay aayadee weye aayadda 9aad رب سبحانه وتعالى كل شيء وحي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لا إله إلا الله وحده مصر مركز حالات رايوكيا باديها يجي هذا الشيخ وانا رميجي باديها شو هيسميه رميجي إنه قفنا قال وحيدا أقضي الله أركضي يعني وحوي ومر أي قارة حرية فندق كلا دعاء بيور وي بيور ذلك سوجا مركز وقفتي أكثر كلا تاجي يقولي مايا ضعيف بانا هاي كان أنا هاي الرب ريب بنو إسرائيل وحي رميين بان رمي حتى عن طوبة كاري هلا يدم بدافه هلا يدبي عليه كرسي يدبي سارة وحي أن كشري يجسوا عليه هذا إلهي حق مساجد أو عرري marka waxa way afka dayr baadiyo yiraahdo wali xiisaynaa inuu fircawn jirkiisu yaalin kala ayda timaam Allah subhanahu wa ta'ala markuu horta yiri ana wala markuu yiri aamantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu israa'ila wa ana min almuslimin bilahi jawaabo wuxuu yiri ana وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما هذا وي afka dayr ku sheegay ma hadda intaas aayad la soo diray 9 آيات بالله سبحانه وتعالى أو معجزات أو بالغات أو دامغات بالله سبحانه وتعالى كأيدي
نبي الله موسى انتي ودن وحبه مثلا فرعون وكجالو بي كدبنا مركي حلقة نفسي أي بدي أي لقضي أو بيه أي حفيين أو أورتي علوشي أي بحسن يوحو يري حتى رميي إلهي سبحانه وتعالى يالله رب بنو إسرائيل مرقاس الله سبحانه وتعالى وحيري فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إلهي وحن كبرينا سبحانه وتعالى كو آيات اللغوشة ينو سنغض دري وآيات السلامة إنه شركي تهدد شيء إنه هذا شركي سنو لي هاي أو إلهي وصوته إلى ضد ضد الرقمري ودماغيها سبب شركي سرايبا آيات وامد الشيخ وهل كان آيات تقاشن إيا اللباد وهي اسم سورة يونس وهي تقاشن إيا اللباد سورة يونس وهي إلهي سبحانه وتعالى وحن غشي كيني نوائنا إنه عبسنا وإن كبيرك إيو أنيقا علي إيا قبيالة إيا وحا هذا شيئا شدن قاركا إنه كفوغا نوهي مركا نيكي وهرية فرعون بوها ونا هلاك سمي سداسونا كعيبو بي وحن وغد بحكرا وحن كتلام كرا فضل شيخ بارك الله فيك runtii waa arrin yaab badan oo xanuun badan oo runtii duruus iyo cibar ay ku jiraan cilaajku muxuu noqon karaa kolow daawadu maxay noqon kartaa ficlan qofku inuu yidhaahdo lii waxan aniga iskale aslan goormad adu soo bilaaban goormo ayaad adduunka ku soo biirtay siyaad ku dhalatay qaabkeed ku dhalatay suuratu yaasiin aakhirkeeda dhegayso qaala tacaala أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أصغى وحلق أبوري أيها دنا كبرياء وأوليه أو دم الله سوى صاري دورا سيدة أخرى الله سبحانه وتعالى وحنوش إليه إن نعمك أصغى لسعود وهي أصغى منعم تصد معها أصغى النعمية الله سبحانه جل وعلا عافماتك أصغى بحية أو أبوك أصغى بحية أو قروح أصغى بحية أولاد أصغى بحية مالك أصغى كسي مركز لنا يسي إلهي من القرآن سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة مركز لنا يسي محادة يسي وح الله وحده يسي ملمد الله إن أذنت للشيخنا فضل قتل الإنسان ما أكفره الله أكبر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره يعني آيات بس لغوكو بالله يسيه آيات كلا يقولون يسوي لا أكرامي إن آدم آيات كلا يقولون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسبنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين السلب والسرائر مركا إنسانك وحلقة أبوري من ماء مهين مركا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سبحان الله الله سبحانه وتعالى شيخ آدم ونوره الله كل ذلك وحوالي النعم كي نستغل اليوم نعم الله سبحانه وتعالى وحولي أستغل أرنتها كلمامية وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها ورهدان اسكت ضيدان إن النعم كإلهي كوبتان أو آتريسان أو كوين حساب تأدوك ويا كان أي كوبان لا تحسوها النفي لا سؤال به مكو بكرتان إن الإنسان لغفور رحيم ربي آية سورة النحل آية الزيتونات وحوك الله آية كلها وما بكم من نعمة فمن الله وروح كستؤون نعمة أو الله إذا سيام نوعي دون تبا أي ونكرة أي نعمة نوعي دون تبا غتين فمن الله ألا حديث أي إذن كأهاتي ألا حديث أتكيرت ولذلك إلهي أصوى سبحانه وتعالى كجل الشيغان إياه وحجري بشرية دورة سورة اللقمان آية اللباقنات ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله يكرر شيئا سبحانه وتعالى وإذن كدنبا وكلر إذن كدقي نعم كيسا مدى موقسئية هي مدى قصان صدرات المالك يا إسكالة المال مالي الله مالك إلهي با إسكالة سبحانه وتعالى وح الله وحو ألك سيي الله با إسكالة سبحانه وتعالى عاصماتك الله حديث كلي
الله حقيسي كاغت أو أرزاقد الله حقيسي أي كريمة سبحانه وتعالى وهكذا با كل نعمة وحل دونيا كفر النعم إلا نقبل لمن دوني نعم كإلهي إلا كو قالوا لما دونيو الدين نعمة إلهي أن كو قالونا كو كفرنا إلهي وانا قابا سبحانه جل وعلا وحنا السينا يا إذكال أي السينا يا